maanta waxaan ka soo deganay daqiiqada ka hor dalka Djibouti oo aan u nimid inaan ka qayb galno shirkan waa shirkii 38aad ee aan caadiga ahayn oo ay isugu imaan doonaan wadamada IGAD markaan leeyahay aan caadiga ahayn macnaheedu waxa weeye shir aanan ku jirin jadwalka caadi ahaan shirkan heerka looga qayb galayo waa heer madaxweyne wadamada IGAD shirkan wuxuu yimid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay u qortay warqad ashkata ah gudoomiyaha ururka IGAD oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan shirkan waxaa looga hadli doonaa saddex qodob qodobka koowaad oo ah xaaladda dalalka IGAD qodobka labaad oo asagana ku saabsan cudurka COVID iyo wadamada IGAD sida ay uga tabaabshaysteen qodobka saddexaad arinta Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysa waa laga hadli doonaa waxaan looga hadli doonaa inta lagu jiro qodobka koowaad waa mahadsantiin